waa mahadsantahay Cabdishakuur iyo Somali Netherland TV ururkan ama jaaliyadan galmudug waxa la aasaasay sanadka 2016 bishii afraad ayaa la aasaasay sababaha loo aasaasayna waxay ahayd baahi jirto ama dadka ku dhaqan Finland reer galmudug oo ka soo jeeda in arrimahooda gaarka ah oo baahiyaha ay ka mid yihiin haddii ah lahayd waxbarashadii oo caruurta laga caawiyo iyo haddii ah lahayd familada iyo sportiska iyo isdhaxgalka dadka aqoomiyadaha aan la noolahay oo Finlandeeska ama Finishka in aan isdhaxgal wanaagsan aan la yeelano ayaa loo aasaasay waxaana aasaasay ama ay ka imaatay fikradda bulshada weynta ay ka soo jeeda ama waxgaradka ka soo jeeda reer galmudug iyo aqoon-yahanada iyo haweenka iyo dhalinyarada waxyaabaha inta ururkan oo jira muddo wuxuu jira 6 sano waxa inoo qabsoomay gudaha dalka Finland waxaanu sameynay xiriiro kala duwan oo aan la sameynay hay'adaha ka dhisan dalka Finland waxaanu wacyigelin aan ka geysanay haddii ahaa lahayd dhalinyarada haddii ahaa lahayd xaaladda jirta ee corona haddii ahaa lahayd sportiska ee dhalinyarada oo activity oo aan sameynay waxaan kaloo qabanay in aan activity u sameyno hooyooyinka oo aan activity aan u sameynay waxaan kaloo wax ka qabanay wadankeeni oo aan ka soo jeedno ee jaaliyada ka dhisan tahay galmudug waxaan geynay qalab sports oo aan ku deeqnay ciyaartooyda qaranka ama maamulka galmudug matalayay waxaan kaloo aan la kaashanay daladan aan ka dhisanahay Yurub qaybo kamid ah oo ka tirsan qaybta Jarmalka ah oo walaalkeen Cabdishakuur aan kala tashanay inuu isbitaalka Sterling daawooyin geeyo oo aan kala kaashanay intaas ayaan qabanay iyo waxyaabo kale oo hadda noo soo qorsheysan in aan ka qabanno haddii Ilaahay raadi haddaan nahay jaaliyada galmudug aan gudoomiyaha u ahay xubnaheeda iyo dadka kala duwan waxa noo qorsheysan sanadaha soo socda oo hadda aan maanta halkan u joogno waxaan ka tirsanahay dalada Yurub galmudug waxa qorsheenu yahay in aan wax badan ka qabanno Finland haddii aan la dhalinyarada iyo familada iyo haddii aan lahayd deegaanadii aan ka imaanay in aan wax ka qabanno haddii Ilaahay raadi si aan ugu faa'iideyno annagoo fikradeena cusub aan la wadaagayno dawadeedna aan gaarsiin doono haddii Ilaahay raado gobolkii aan ka soo jeednay insha Allah waxa u mahad celinayaa in aan maanta aan ka mid noqday daladan geedan xubnaha golaha fulinta waxaan rajeey doonaa in aan wax badan aan kala shaqeeyo anigoo ah gudoomiyaha jaaliyada galmudug ee Finland wax badan aan ku soo kordhino si firfircoon oo la shaqeeyno haddii Ilaahay raado gobolkina aan wixii mashruuciyo ah iyo horumarin ahna aan gaarsiino aad waxaan halkan ugu mahad celinayaa TV-ga Somali Netherland TV oo hogaaminayo walaalkay Cabdishakuur oo maanta wareysigan halkan igula yeeshay aad iyo aad ayaa u mahadsantiin waana mahadsan